taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya iyo saraakiil oo horkacayo maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa kormeer ku sameeyay xarumaha ciidamada booliska ee magaalada Baydhabo iyagoo sidoo kale kormeeray xaruntii tababarka ciidamada booliska iyo xaruntii daraawiishta. warkan waxaa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyahayaga Alaaba magaaladaas inooga soo waranta Safiya Abubakar Jeye. wafdigani maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa hogaaminayay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed General Saacid iyo saraakiil ka kala socota hay'adaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya. ujeedada wafdigani uu hogaaminayay General Saacid ayaa ahayd mid uu ku ogaanayo xaaladaha booliska gobolka Baay. wafdigani ayaa si weyn u soo dhaweeyay maamulka gobolka Baay kan degmada, saraakiisha ciidamada AMISOM oo ku sugan magaalada Baydhabo iyo saraakiisha ciidamada booliska ee gobolka Baay. taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed General Saacid ayaa salaan sharaf ka qaatay xutubyo ka tirsan ciidamada booliska gobolka Baay. ugu horeyn taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa booqday xarunta tababarka ciidamada booliska ee xeerada Cali Salaamey, saldhigga weyn ee magaalada Baydhabo iyo xarumaha kala duwan ee hay'adaha amniga. ugu horeyn waxa imaatinka wafdigani uu hogaaminayay General Saacid ka hadlay gudoomiyaha gobolka Baay Dr. Cabdi Aadan Hoosow oo sheegay inay sharaf weyn u tahay soo dhaweynta taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed. إني جنرالكي عليه البوليس الصومالية نول سجاي جنرالك إلهي ما ننتي سجاي كروي كبرتي ويلناها جنرال بيدوه نين كدواو بيدو جناي هكدواو بلدك هكدواو دنفتينا أرد والبدن نو إسبدل هذا الصوب دي جرت ولكن كوكو ما هاد نجاو قبل كنكو جي وأنا لكن جرت راديها كوميته حتى إيتني كعاوي أرد security مسنبت جليد إيتني كعاوي جاريد كوميته أرد حتى هذا هني فضوضاتي قبل كهكذا. gabagabadii ayaa ka hadlay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed General Saacid oo sheegay noloshu inay sal u tahay amniga. ayaa sal u ah nolosha oo idil. taas ayaanu waxaan xoojinaynay in aanu gaarsiino gobolada qaab dawliga in lagu soo hago dhammaan ciidamada booliska iyo amniga inay ka shaqeeyaan kana howlgalaan si ay ugu gargaaraan mujtamaca Soomaaliyeed oo muddo ku soo dhibaatoobay burburkii colaadda waqtiga dheer qaatay haddana ay runtii ay u diidan yihiin koox yar oo nabadiyada in noloshii ay si dhaqso u soo noqoto. runtii waxaan aad ugu mahadinayaa gobolka oo aan aad ugu taamayay muddo badan in imaado kana mid ah gobolada qabsaday iskood wax u qabsaday kana shaqeeyay amniga una baahan wax allaale wixii ay gacan uga baahan yihiin dawladda inay helaan ayaan maanta go'aansanay hogaamadii booliska intii ugu badnayd inaan halkaan nimaadno iyo anigoo taliyaha inaan kormeer ku nimaadno annagoo u kurgalayna qaabka boolisku yahay wixii suurtagalay waxa ay soo maray booliskii hore hadda heerka la taagan yahay iyo heerka aan rabno inaan eegsano. waxaan filayaa wafdiga ugu horreeya booliska oo heerkana waqtiga ugu horreysay oo yimaadaan ayaa maanta runtii mashaariicdu waa bilow aad bayna runtii noo farxad gelisay sida ay reer Baydhabo laftooda ugu heelayeen arrinta amniga waxaana uga qabanayaan annagana waxaan naga go'an dawlad ahaan inaan gaarsiino wax allaaliyo wixii karaankayga inaan soo gaarsiino. taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed General Saacid ayaa markii ugu horeysay oo booqasho ku imaanayo magaalada Baydhabo una ku eegayo xaaladaha amniga ee magaalada Baydhabo. Safiya Abubakar Jeye, telefishinka caalamiga Kalsan TV, Baydhabo.